بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميلو البود الدنيا ka joogtaan top secret ayaan ma arkayse ugu soo noqonnay iyadoo oo daqiiqada ka hor aan rajaynayo in aan live-ka isku macsalaameynay duco dheer kadib laba qodob oo gaagaaban oo ma arkayse top secret ah quseeya Soomaalida ayaanu jecelnahay inaan ma arkayse halkan idinkula wadaagno dhagaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaalahaw mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leenahay ku soo dhawaada warbaahintiinii ku bahawday koonfurta Soomaaliya afka qalaad loo yaqaan Southern Media Corporation oo loo soo gaabiyo SMC qaramada midoobay ayaan war idinkaga haynaa hadda iyo golihiisa ammaanka quseeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dawladdiisii ama xukuumaddiisii dawladda haddii aan dhaho shacabka oo dhan waa iyo xukuumaddiisii balse waxaanu ku hormaraynaa qodobka koobaad wararka inaga soo gaaraya Ethiopia waxay tilmaamayaan in ciidamadii madaxweynaha goonistaagga Somaliland Muuse Biixi Cabdi Ethiopia uu dirsaday in meeshaasi loogu soo tababaro si xukunka uu ugu joogo dagaalna uu ugu geliyo Laascaano Goojacde oo wali uu doonayo inuu soo weeraro ciidankaasoo 10 bari ka hor laga kaxeeyay Somaliland tababar meeshaasi loogu furay in loo dhacay galabta waliba casarliqii jabhadda oromada ah in ay ugu dhaceen xerada ciidankaasi waxaa la sheegayaa inkastoo xaqiijin aan ku maqannahay kale in la laayay la dhaawacay qaar ay firdhadeen waxa sidaasi la yeelayaa waa wiilal Soomaaliyeed wax lagu farxo maahan waxaan rajaynayaa 10 maalmood ka hor sawirada xataa waa la heli karaa ciidankaas oo Ethiopia loo qaadayo oo tababar meeshaasi lagu soo siinayo walow Muuse Biixi uu isku dayay inuu qariyo balse laakiin dunida maanta hal guri ay tahay wax badan aan la qarin karin si kastoo ahaataba casirliqi ayaa la sheegay in ciidankaasi loo dhacay tababarka cusub loo furaayay tiradoodu waxay ahayd ilaa iyo 1000 askari bay ahaayeen sida ma arkayse sirdoonka uu ku soo waramayo kunkaasi askari kumanaan kale ayaa la rabay in lagu daro oo ma arkayse Somaliland loo soo tababaro baga shaqo fiican bay oromadii qabtay mayo kuma farxay aniga Soomaali la dilay ama la laayay ama la dhaawacay ama la bursaday waxba macna saas ay ma sameynayso haddii annaga gudeena ay tahay somehow laakiin haddii qof Soomaali ah ajnabi uu bursanayo uu dilaayo uu dhacayo anuu kuma farxayo oromada laysay ciidankaasi casirliqi ayaa xerada loo dhacay sirdoonka wuxuu tilmaamayaa inkastoo warka uu noo dhiman yahay wiilashaasi Soomaaliyeed ee Somaliland laga diray kunkaasi askari ee bilowga tababarka xukuumadda Somaliland Muuse uu dirsaday in ma arkayse macnihii la laayay qaar la dhaawacay hadda dhaawacaba ka sii daranba kuwa dhintay qaarkood mararka qaar dhaawaca dawuu rabaa ee ma arkayse macnihii dhiig baxbu u dhiman karaa that's very very hard way adag tahay taasi marka walaalayaal ha loo duceeyo wiilashaasi Soomaaliyeed sida la sheegay hadday 100% run tahay ee xerada loogu dhacay ee la laayay la dhaawacay iyo kuwa qaarkood firdhaday ilaahay inuu badbaadiyo inta nool inta dhimatana ilaahay inuu naxariisto way oromadu waxay dhaheen baa la yiri meel aan annaga joogno ma arkayse laguma tababari karo Soomaali mana dhici karayso inahaasi markay joogto marka su'aal baa la isweydiin karaa dadka isaaqa ah iyaga idaacadda qaarkood la yimaada inkastoo qaar ay diideen
ay dhaheen ma arkaysa annagu lafti nagaa ma nihin ducadaasna ma ogolin laakiin qaar baa yidhi annaga asalkeenna meeshaasaan ka soo jeednay soomaaliga waxaa iga dhow amxaarada shalay lahaayeen xataa heesay ku soo qaadeen marka ku digasho maahan waana ka naxayaa wiil soomaali ah ma arkaysa in la dhibaateeyo meesha marka lagu xareeyey waa xaggee ciidamadan waxaa lagu xareeyey baa la yidhi dhulka soomaalida iyo dhulka oromada meesha ay iska galaan xero ku taal ayaa la geeyey baa la yidhi meeshaasaa tababarka loogu furay ma la dayacay mise anigu waxaan ogahay oromada iyo soomaalidu in dagaal uu u dhaxeeyo dhulboob ah canfarta iyo soomaalidu inuu dagaal u dhaxeeyo dhulboob ah waan ogahay marka xoogoo dayac inuu jiraan u maleeya because waxaa lagu tababari karaa soomaali galbeed jigjigaa lagu tababari karaa waxaa lagu tababari karaa ma arkayse diridhaba inkastoo diridhaba hadda lala wareegaayo meelo badan oo soomaalida degan tahay baa jira oo xero milatarina laga heli karaa haddaanan khaldanayn ciidamada soomaaliya gudaha soomaaliya lagu tababari karaa macallimiin inta loo soo diro for example magaalada baydhabo oo kale xero military oo Etoobiyaanka u leeyahay dugsi baa ku yaala ciidanka ka soo baxaana wadnaha iyo sujuuday toogtan baraa waan ku aragnay oo looma dhawaan karo marka kulley meesha la geeyay sida warbaahinta macnaheedu sirdoonka uu tilmaamayo waa meesha ay iska galaan macnaheedu dhulka oromada iyo dhulka soomaalida xero ku taal ayaa la geeyay baa la yiri tuuganimo lagu geeyay 1000 askari bay ahaayeen oo u dhashay Somaliland gobolkaasi waqooyi galbeed xukuumadan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana macnaheedu loo tababaray marka warkaasi dhiila ayuu leeyahay kaasaan ugu soo noqonay qodobka labaad golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbaa ka soo baxay laakiin idaacadaha waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda in ay ka faalloon doonaan ama ay ku shaqaysan doonaan warkan hadda aan sheegayno haddaynu nahay jaamacadda SMC sababta guddiga amniga qaranka maanta loo fariisiyey Soomaali macnaheedu ugu filnaan waayey af Ingiriis loogu soo daray ayaad ka dareemi kartaa Shabeel baa ikoray ma dhuusin been waxaa loo qabtay ilaa iyo Isniinta waxba yaan laga qarinin anaa ku sheegay haday qariyaan annaga joogna golaha ammaankana waan joogna security councilka waad iyasaysaan aniga laakiin wallahi macnaheedu dad noo dhax fadhiya waa dhaartay weysaan qaba security councilka golaha ammaanka Soomaan golaha ammaanka fadhigiisaan warbixin ka keeni karnaa iyadoo idaacadaha aan ka waramin can you believe it that ma rumaysan kartaa idaacadaha CNN-ka iyo Al Jazeera oo aanan sii hadlin ayaa fadhiga golaha ammaanka warka keeni karnaa annaga ilaahay baana ku mahadsan marka sidaas awgeed golaha ammaanka waxay u qabteen ilaa iyo Isniinta waxaa lagu yiri hadda waa kama dambays Isniinta waxaan ka rabnaa warbixin dhameystiran hubkaasi ku saabsiisan ee shacabka Soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan Xasan Saasaleeyay oo ku waramaya marka shalay safar anoo ku jira waan guurguuraae wadan kale haddaba joogaa kaan joogay ma ahane fiiri maxaan ku sheegay qorqor diyaarad qaasa loo diray ma ku dhahay degdeg mana daqiiqadna kama soo daahi kartid safaaradda Mareykanka ma lagu soo shubay qorqor marka macnaheedu shukulaato iyo sokor iyo caano la isku qasay moo Xasan Sheekh Maxamuud u diyaariyay warbixintu gudbinayay bay kula tahay qorqor markuu meeshaasi ka tagay wuxuu dhigay baa loo ogyahay Soomaan saaxiib waxaa lagu yiri warka inuu isdhalayaan ku sheega Isniinta waa kama dambays fact points articulate qodobo wax maraya aqli gal ah ku saabsiisan hubkaasaan ka rabnaa cidda iska lahayd meesha uu u socday cidda loo waday caddayn buuxdaan ka rabnaa dalka madaxweynaha ma ka tahay hey tani waa fadeexad
shacab inay intaasoo huba iska qaataan gobolkan uu hurayaa amniyaan la rabnaa international waters sidaa marka la yiri guddiga fartaagow maxmareexaankaaga u tag wax lee adiga wax lee soo qoro fartaagow bal horta saamshuutarada qaar xataa waa keena aan dhahno guddiga ha fariisto warqad soomaali ha la qoro naguma filna the president federal